hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo caro iyo ciil u qaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa abaabulay barnaamij lagu kala geynayo shacabka Soomaaliyeed sida la socotaan Dani oo Xasan Sheekh ka waayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhinaca kalena xiriirka u jaray dowladda federaalka Soomaaliya si loo fashiliyo deyn cafinta Soomaaliya ayaa dhinaca kale asbuucan abuuray xiisad siyaasadeed oo la isaga horkeenayo shacabka Soomaaliyeed ayadoo uu Dani halkan ka raadinayo faa'iido siyaasadeed. Haddaba maxay tahay dhacdadan ay abuureen Dani iyo kooxuwan magac reer sida la socotaan gabadha lagu magacaabo Marwo Cabdi Bashiir oo u tartamaysay madaxweynaha baarlamaanka adduunka ayaa iskeed isku sharaxday ayadoo ay jirtay inay dowladda Soomaaliya horay ugu wargelisay inaysan u sharaxnayn booskaas. Sababta ay Soomaaliya ugu tartami weyday booskan ayaa ah inay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Tansaaniya wada galeen heshiis iskaashi oo 3 qodob ah kaas oo ay Soomaaliya faa'iido weyn ku qabto. Xilliga uu dhacayay heshiiskan ma jirin qof Soomaaliyeed oo u sharaxan booskan. Sidaas darteed madaxweynaha Tansaaniya oo xaqiijisay inaysan Soomaaliya cid u sharaxnayn ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka codsatay in lagu taageero kursigaas. Intaas kadib dowladda Soomaaliya ayaa Tansaaniya u bandhigtay 2 qodob oo kala ah: inay Tansaaniya Soomaaliya ka caawiso ku biirista ururka bulshada bariga Afrika oo ay Soomaaliya muddo dheer raadinaysay balse aysan weli helin. Qodobka kale ee ay Soomaaliya Tansaaniya ka codsatay inay ku taageerto ayaa ah xubinnimada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ugu dambeysay 50 sano ka hor. Haddaba marka la eego heshiiskan ay wada galeen Soomaaliya iyo Tansaaniya ee 3 qodob ah waxaa faa'iido weyn qabta Soomaaliya. Dhinaca kale warqad dhawaan ka soo baxday guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayuu sheegay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Abshirow inay warqadaas ka dhalatay wada hadal dhex maray guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Marwo ayadoo ay xildhibaan Marwo aqbashay inay tartanka ka harto ayadoo eegaysa fursadaha waaweyn ee Soomaaliya ugu jira 2 qodob ee kale. Laakiinse ay xildhibaanadu dib iska bedeshay markii ay ogaatay inay warqadu soo baxday. Intaas kadib ayaa sheekada laga dhigay in xildhibaan Marwo loo diiday qof ahaan iyo qabiil ahaan ayadoo uu hogaamiyaha maamulka Puntland Dani uu hormuud u noqday ka hadalka sheekadan. Dhinaca kalena Siciid Cabdulaahi Dani oo diiday in Soomaaliya deynta laga cafiyo sidoo kalena dhawaan diiday inay Puntland ka qayb gasho tartanka ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa waxaas oo dhan u sameynaya sidii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u fashilin lahaa sidoo kalena shacabka uga horkeeni lahaa. Dani ayaa ka caraysan danihiisa gaarka ah ee uu ka waayay dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba daawade maxaa kaaga baxay sheekadan aragtidaada ka dhiibo.